sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka intan leeg baa ka soo baxee malaha waad ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa le isii weeyaan teen waxaan ku dagaalamayno dhulkan anigaa le gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaa le iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahe adigaa iska leh iga qaado waxaan malihi anigu yahay lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa leh ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war maliye isagaa ilaahay siiyey ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaaba inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena ilaa qaar baa iska fiican way jiraane laakiin kuwadda waxaa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolaha dawladda iskale iska keena halka ka baxay ninkuna mu odhan wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi galabtaan sheegaaye kitaabka imaam ibn al-Jawzi rahimahullah uu leeyahay sifatu safwa dasa cajiib ku sheegay Abdulwahid bin Zayd nin la oran jiray nin saalix oo caabido reemaka ayuu ahaa habeenada kamida sidoo u ducaysanayo oo alla baryayay ayuu ilaahayow wuxuu ilaahayow gabdhaha muuminaadka ee aniga ma aragtaan adduunyada aad aakhirada jannada igu tala gashay haday adduunka joogan ilaahu itusbu yiri uu seexday markuu ducaystay buu iska seexday manaan baa lagu yidhi gabadha maymuunata sawda layda ee ciraaq ku nool ee magaalada kuufa ku nool ee miiga kuufa ku nool ayaa kamida gabdhaha muuminaadka jannada lagu guurin doono makku ka dhaqaaqay ciraaq buu tagay magaalada kuufu yimiday dadkii buu wareystay markaas loo sheegay leeydi wartaasi waa to macduurada oo dadka ma soo dhex gasho magaalada dibaddeeda xoolo ku dhaqata waa iyada waxaan rabay ii tilmaama halka mar uu tag baa lagu yiri wuxuu yimid iyadoo ari badan dhex joogta arigeegii iyo waraabuhuna isla daaqayaan isla cunayaan markaasay jubbad suufa ayay markaa huwanta salaad bay tukataa 800 maan u malan kitaabka inaan ka arko subaxdu kaliya 800 oo rakacay tukataa way ka baxda way tukataa way xidhataa way tukataa markaa bay dareentay qof bini aadana inuu meesha soo dhawaado ariga soo dhex galay salaadii bay khafiifisay kolka salaadii ka baxday ayay ku tiri ibn ziyad ibn zayd bay ku tiri ballankeenu halkan ma hayno aakhire iska socod bay ku tiri والله يابي magaciisina way sheegtay muraadku socdana way sheegtay arigeegina uu eegaayo waraabihiba iska dhex socdo oo la cabayo oo la daaqayo oo dhex jooga wuxuu in zaydina nahay oo arinka u socda ayaa ku sheegay waxay tiri xadiiskii nabiga maadin lowday inna al-arwah junudun mujannada fama ta'arafa minha i'talafa وما تناكر منها اختلف حديث النبي محمد يري أرواح بني آدمك وأسكر إلهي واسكو حرن ويان عالم الأرواح بان وذا جوغيني لبدي الروحي هلك سر اسكو تقاني أدونكنا واسقرنا واسقرنا واسفهمي حدي هلك اسكو صوت ديدينا أدويدنا واسديدي أرواح لنا استقاني السلامة بكتري بلنكيننا وآخره سؤال كلامك ويدي بكتري السؤال هذا كان السؤال قابي أريقاً ورابو كاعون ما يمحات وآخر دي بولي بليشيك وعيتني هلا يابن أنيقو إله خالقا ربكي حريرك نقد حيبان أتكيستون هقا جستي لبدا حريرك كد حيان إلهي بهقا جيتي
إنكم أنت الدين مركز لهذا القاضي وحنو هيسنا دين تمنفعديد وين آخرة وأنت هلا بس صفوان بن أمية أي عمر بن وهب نكال ورنجري أيكم مركز لبدود ومشركين ومكة أي جوغان وزمن النبي عليه الصلاة والسلام وقعدي دقال كي بدر بالغا سو نقدي تضباطن قالدنا waa laga laayay toddobaatan gaalo ana nabigu waa qafasho uu xiro uu qaatay labadanna waa qaraabo Umar ibn Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa toddobaatan kala xiray Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar ibn Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay to aanu adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeeladan ku tagana anu maanta waan haystaayo inankayga baa iga xidhan oo intu saban oran lahaaye Muhammad aniga soo kharijin lahaa buudi Safwan bin Umayya ayaa ka faa'iideysto yiri ma sameyn kartaa haa waan sameyn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga kamid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raacabu ka yiri waa labadoodu kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysana waa taqaanaan la 400 kilometer وصار صعدي آلات كان زمن كان إمكاس كتور تورا إن فيسبوك يا واتساب يا بلايا جن مجري زمن كاس وصار صعدي مدينة وصار قال عمر بن وهب سوى سيفتي سجاني قارن مر علي مركو عمر بن الخطاب بايري وعمر بن وهب باها شيطان من شياطين قريش ويانه سيفتي نواكا جاني قارن قرت كسيتي أردو نبي إلى علي يقول نبي نواك جوج نبي كإلى علي صلى الله عليه وسلم شرق مو صعداء خير ما صعداء markaasuu ayaa rasuulka loo sheego lagu yiri nabi Allah Umar bin Wahab soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa uu nabigu yiri soo galiya loo soo galiyay xaadu timidey buu ka yiri waxaan u imiday inankaygii oo asiir oo gacantiina ku jiro inaka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameysaan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu yiri oo ka wada hadalno markaa uu nabigu ku yiri seeftana qoorta ku sidata maxay tahay hada wuxuu qabbaha Allah buu ilaahay haba duleeyay seeftana ma waxbay noo tartay buu dagaalkii Badar iyadoo tan wadano Saoudiga 7 naga laayay 7 naga soo qafashay naga soo xidhay ma markaa uu nabigu ku yiri fariisa buu yiri arrinka ma harikaadu socoto aniga kaaga warramay oo fariista adiga Safwan bin Umayya saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fariisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii Badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri hadan heli lahaa deynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aan u dhiibo iga kafiil noqoto hadan heli lahaa Madiina intuu tagaan Muhammad aan kaga soo takhalusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna deynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabo haaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartida ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga waramay Allah baa uga waramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tidhi baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtana ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa Allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waan ku rumeyn adigane ilaahayna waa rumeyn tawxiidka ay qirbu ku yiri halkii buu ku qiray ilaahay marka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay كل ريبن إسرائيل أيام متك ريبن إسرائيل كذل بالدين دين كل درهم
kun diinaar wuxuu lacagta hanku amahiye xadiiskuna waa saxiix hanku amahiye ayaa markhaatiya markaasuu ilaahay baa noo maraga buu ka yidhi kafaa billaahi shahiida buu ka yidhi markaasuu runtaas haddaad dhimatid haddana waa dayn weeyaane ayaan u raacaa lacagtaydii kafaa billaahi wakiila ilaahay baad u raaciyo iga wakiila buu yidhi markaasuu wallahi waa runta lacagtii buu u dhiibay way kala qorteen maalintuu lacagta keenayo labada nin waxay ku kala nool yihiin laba qar oo jasiirad badda u dhaxaysa maalintii kan daynka loo soo celinayay dhinacaa buu soo joogsaday kii kalena qarkii kaluu joogaa doontii uu raaci lahaa maalintaa maysan iman buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam kolkay gabalku uu sii dhacayo haddeetoole doon ma jirto wax la raaca ma jirto ayuu qori intuu soo qaaday ayuu dillaaciyey warqad buu ku qoray yaa rab badda adaa abuuray dhulkii cirka adaa abuuray makhluuqa adaa abuuray walaalkayga muslimka maalintaa lacagta uu idayminayay marag buu ii weydiistay markhaati adaan kaa dhigto uu ku qancay wakiil buu ii weydiistay adaan kaa dhigto uu ku qancaye ilaahow maanta aniguna waa anigaa imidda baddii markab iyo doon ayaan waayoon la kulmi waaye ilaahow addoonka ammaanada iga gaadhsii buu yidhi adaan noo dhexeeye warqaddii buu ku duuduubay qorigii buu dhex geliyey maro kale ugu duuduubay baddii buu ku tuuray kam masaafada inta u dhaxaysa laa nadri intay tahay laakiin siduu doono yeela waayo innamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun waman yattaqi allaaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ee ilaahay ka cabsada ee xaqa ilaahay ilaaliya xaqa bini aadamkana iska ilaaliya umuurtiisoo dhan baa ilaahay waxaa ka dhiganaa fuday laakiin inuu xaqa iska ilaaliyo halka u yimiday qorigiibuu badda ku tuuray qorigii oo biyaha dul sabaynaya ayaa xaggii kale soo gaadhay kii kale markuu waayay wax doonoo soo socotay markab ayuu yidhi bal qoriga yaree badda dul socda maad iska qaadatidood reerkaagii xabaha uga dhigta dacaawo ajajabsadaan kolkuu qaaday reerkii buu u geeyey oo u jajabiyey warqaddii baa ka soo baxday oo kala furay lacagtuu sideediiya yaa soo gaadhsiiyey ilaahay baa soo gaadhsiiyey innaku waxaan moodaynaa nidaamkan caalamka inuu kombyutar adduunyada ku socoto waxay adduunyadu dowlada sameeyeen caalamka nidaamka ilaahay buu ku socdaa uuna ku socon jiray uuna ku socon doonaa laakiin dadkii nidaamka ilaahay la tacaamulaya maanta awaya qisaskaasoo dhan nebigu wuxuu noogu sheegayaa waa dadkii nidaamka ilaahay kaga faa'iidaystay iimaan iyo alla ka cabsi iyo diin iyo taqwad cuthmaan binu cafaan allaha raalli ka noqdee addoommihiisii addoon ka miduu u yeedhay maalin wuxuu idhi lacagtan qaad abudar alkhifaari u gee hadduu lacagtaa abudar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abudarna markaa magaalada madiina dibaddeeduu deganaa ribda meel la yidhaah oo cuthmaan binu cafaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciintaee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyaday la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga la cunayana weli uu cuna isagu abudar alkhifaariyi radia allahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa maaha inde ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay uu yimiday uu salaamay wuxuu hi amiirkii mu'miniinta cuthmaan baan salaan kaaga sidaa waan ka qaaday bal warran isaga ka warran daar alkhilaafa ka warran masjidkii nebiga ka warran muslimiinta xaalkooga ka warran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana uu ii soo dhiibo wuxuu yidhi abudar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu idhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiino joogtee ciddaas sii ka dha buu yidhi
innaga maanta lacag nin diidi kara uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa quraan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weyn adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin inuu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimada han ka baxe i xoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi kaa qaadan maayo waxaad doonto akhri markaasuu hor iga qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaada iyo aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso xataa siirada waxaa ku taalla fi sunan gaalada markii la soo qabta qaarkood nebigu wuxuu odhan jiray masjidka ku dhex xidha hamaamata binu athal baa ka mid ah fii saxiix albukhaari raximahullah sariyuu nebigu diray markaasay ninkaas soo qabteen markaasaa ninkii nebiga loo keenay maad garanaysaa ninkan maya ma garanayno waa hamaamata binu athal waa malik alyamaama halkaa iigu xidha buuri masjidka dhexdeeda igu dhex xidha masaajidkii waa jeel markaasaa halkii baa lagu dhex xidhay markaabuu nebigu reerihiisii buu tegey cuntuu uga soo qaaday hashii irmaanida nebiga noo maalaya caanaheegiina uga soo qaaday markaasuu nebigu halkii ugu keenay u yidhi hoo acab waa nin xidhxidhan markuu cuntadii siiyey oo caanihiina kabisiiyey buu ku yidhi yaa hamaama iska soo islaam markaasuu yidhi ma islaamaya buuri in taqtul daa damin wain tuncim calaa shaakirin wain turiidu lmaala fasal maa shita buu ka yidhi yaa muxamed haddaad aniga i dishid buu ka yidhi nin dhiiggiisa dhulka u dhacaya ma ihi buuhi tol baa iga dambeeya buu yidhi haddaad igalladaysatidna maantood xaniga iga sii daysidna nin abaal celiyaan ahay buuhi anu waan abaal gudi haddaad maal iyo adduunyo doonaysana sheego waxaad doonta waan ku siine laakiin xaniga iga sii daa markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi may kuma sii daynayna buu ka yidhi habeenkiibuu halkii ku baryey cashadiibuu nebigu haddana u keenay hashii nebigu caanaha uu ka maalayey isaga looga maalayey ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga ayuu u keenay caanihiisi markaasuu ku celiyey haddana u iska islaam nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa nin gaala oo mushrika caanihiisii intuu keenay siinaya xeraadku ku cashaynayana intuu soo qaaday buu hordhigayaa markaasuu weliba u khidmaynaya u adeegayaa uu leeyahay soo islaam muxuu nebigu ninkaa la maagan yahay inuu naar ka badbaado masab ka dooni maayo lacag ka dooni maayo shuhrad ka dooni maayo waxa keliya ninkaa nebigu uu ka doonaya waxa weeyaan inuu soo islaamo markaasuu ku celiyay haddana yaa muxamed haddaad i dishid dhiiggaygu dhulka u dhici maayo waa layga dambeeyaa buu yidhi haddaad igalladaysatidna maanta ood isii daysid ood xariggaa iga sii daysidna nin abaal celiyaan ahay buuhi anigu ma ciyaar nin kaftamaya ma ihi buu yidhi abaalkaaga waan gudi haddaad adduunyo doonaysana xoola waxaad doonaysa i weydiiso madax furasho oo waan ku siinaya xarigga iga sii daa markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi may markaasuu dee waa hagaag aniguna ma islaamaya buuhi
haddana maalintii saddexaad sidii si leeb buu nebigu ninkii ugu khidmeeyey xeraadkii buu u keenay canihii buu u keenay markaasuu yidhi athamaama iska soo islaam sidii unbu isaguna ku jawaabay markaa buu nebigu saxaabadiisii ku yidhi dilkiisi waxbay noo tari maaya xadhigga ka sii daaya haska socday buu yidhi sii daaya markii la sii daayey magaaladii madiinuu ka baxay beerihii beer ka mida buu galay ceel ay lahayd buu biyo ka soo dhaansaday uu ku soo qubaystay oo uu soo maydhay masaajidkii nabigeenna uu ku soo noqday isaga oo leh ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluhu u salliya rasuulkeenna sala allahu alay wasalam markaa buuri yaa rasuula allah diintaadan diimaha ugu necbaa laakiin maanta laga bilaabaa diintaadan diimaha ugu jecelahay dalkaagaan adduunyada ugu necbaa magaaladaa madiine ayaan magaalooyinka ugu jecelahay wejigaagaan wejiyada ugu necbaa maanta laga bilaabaana dadka ilaahay abuuray adaan kugu jecelahay buu ka yidhi nebi reer bani israa'iila dagaal buu galay dagaal jihaad dagaalkii oo socda oo gaal iyo islaam la isku laynayo salaaddii casar baa gaadhay markaasay nebiga u sheegeen yidhaahdeen yaa nebiy allah salaaddii casar baa taagan salaaddii baa taagan nebigii waxaa la yidhi fartiisuu ku fiiqay cadcadda sidaa ugu fiiqay waa nebi ilaahay doorto rasuula markaasuu yidhi adigu amar baad ku socotaa annaguna amar baan ku soconnaa kaan amarkiisa ku wada soconno ayaan weydiisanay inuu ku joojiye halkaa noo joog buuri ilaa aan gaaladaa kala baxayno halkaa ha ka dhaqaaqin xadiisku waa saxiix dagaalkii bay wadeen gaaladii bay jebiyeen way ka guulaysteen khaniimadii xoolihii bay la soo hadheen kolkay guushii ay gacanta ku dhigeen wax walba ay guulaysteen ayuu nebigii ku yidhi cadceedda inoo eega weli halkii bay joogtaa soo ma joogta haa salaadda imminkaan tukanaynaa buu yidhi markay salaaddii tukadeen buu yidhi haddaba imminka iska soco iska dhac buu ka yidhi horumarkaa caalamku ma gaadha imminka caalamka horuu maray maxaa horuu maray birahan qayliyaa horuu maray birahan wax duubayaa horuu maray bani aadamku ma horuu marin maanta hoos baan u dhacnay innaku maanta cabdillaahi bnu xudaafa radia allaahu canhu markii boqorkii ruumuu soo xidhay waxaa loo bandhigay laba shay in boqortooyada ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo صحابي جليلة تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام قسيس كيف أقول عيدا كنك وتا والنبي محمد أرضي ريسي أرضي كمدا حنقدلين نصرانية دو بندق وحلي وحو دين تاكو دور سكرنا هلا صيو سن السارة إسلام كأوغس سعوتا وسد عن سبيل الله يقول نقضو لكن وحينا كور قبل نبي محمد صحابة ديسو إيمانكو عرب كما دولي الله إيمانكو قلبك دولي الله هلكو دولي الله قلبك وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إيمانك الصحابة ماها من عرب كدولي الله من ما أدوية لا دافسن كرا ماها ومن قلبك إيمانكو فريستي وين إلهي كو تعلق سن هو يرى بقرك ما كلها تاين النصرانية ده سوا قلي boqortooyadeedana kala barkeed baan ku siinay markaasuu qoslay wuxuu boqortooyadaada oo dhamaystiran oo waxba laga reebin iyo boqortooyada carabi ay haysato haddii halkaa la ii dhigo oo la igu yidhaahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallaahi inaanan yeelayn buu ka yidhi wallaahi maa facaltu buu yidhi darfata cayn diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxaasoo mulkigeena qaado ma yeelayo buu yidhi boqorkii baa ku yidhi waan ku dilaynaa دوابا نيحدنا هاي بودي هذا يدل سر ونيحدنا إحدى الحسنيين بيسوق يعني يكو إما النصر وإما الشهادة إما إن يقول هلان أو تمكين هلان وإلهي قرقار كيس الله بلن قاد عنده كو أركان إما إن الشهادة هلان فردوس يتقان لو شهاد بيد وحقوق ما أركان وحال الله السماء مركا بغر كي أمر وحكو بحيي دريوا وين وصليد أو كركرايا ayaa hortoodii la keenay laba nin oo muslimiintii inta la soo qaado isaguna arkaayo ayaa la diinta islaamka ka noqda kama noqonayna bay yiraahdeen
markaasaa la qabto labadii ninba sida loogu tuuray. qof bini aadan oo nool oo dhari saliyadoo karkaraya loogu tuuray ka warrama. subxaan allah. isagii baa markaa la dul keenay oo xidhxidhan ka noqo diinta islaamka oo nasraaniyadda qaado. markaasuu yidhi ma qaadanayo, lilmaa ka daadatay. markaasaa boqorkii lagu yidhi hadduu cabsoodayo waxaan u malaynaynaa inuu gaaloobayo hadda. markaasaa loo bandhigay nasraaniyaddii oo lahay gaalow. markaasuu yidhi ma gaaloobayo. de maxaa loo oydaa lagu yidhi markii dabka lagu dul keenay dheriga karkaraya. hal naf baa igu jirta waa iga baxaysaa mar keliya. waxaan tamaniyey jidhkayga inta tin ku taalla in la tirin lahaa oo intaasoo ruuxa laygu abuuri lahaa oo mid walba intoo mar halkaa la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd. taasaan tamaniyo onan haysanoo ka ooyayaa buu ka yidhi. naf keliya ma aha, kumanyaal nafa in laygu abuuri lahaa oo mid walba halkaa intoo la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd. taasaan tamaninayaa mana haysta buu ka yidhi. boqorkii baa yidhi kan dilkiis waxay noo tari maaye ha iska sii dayno. waayahay sii daaya. ma kula tahay buu ka yidhi madaxa inaad iga dhunkan waana ku sii dayne. markaasuu yidhi magaal baan madaxa ka dhunkadaa. isagii baa isla shuuraystay. shardi buu ku xidho wuxuu yidhi haddii muslimiinta ila xidhan aad ii sii daynaysid haa waan kaa dhunkan, haddii kale kaa dhunkan maayo buu ku yidhi. markaasuu yidhi hagaag iga dhunko. markaasuu yidhi magaal baan madaxa ka dhunkadaa anoo asxaabtii nebi maxamed ka mid ah. ragga ah uu sii daynaya soo maahayna waan ka dhunkan ila bariba jihaad baan ku soo celinay kala bixi mayna. ajiib asxaabta rasuulka ay soo galeen. Umar ibn Khattab baa soo dhaweeyay inuu gaal madaxa ka soo dhunkada ayaa u sheegay baa la yidho. raggii la socday baa Umar ku yidhi Cabdullaahi ibn Xudaafa ha dhunkan ha salaamin oo ha soo dhaweyn waayo gaal buu madaxa ka soo dhunkaday. innakana hebel dibaddu u baxay, hebel dibaddu u baxay, hebel hayad buu la shaqeeyaayo waa iskugu toostay. gaal inaad la shaqayso ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan. gaalada dhulkooga inaan tagno ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan. iyakuna raggii la soo daayay dhunkashada lagu soo daayay baa Umar ku leh gaal buu madaxa ka soo dhunkaday ha salaamin. Umar baa yidhi balukaadii ha warayste sidee ku dhacday inaad nin gaal madaxa ka dhunkata. wuxuu yidhi iyakaa ku soo daayay buu yidhi. si markaa cuqdadii yareeda qalbiga u gashay Umar uga biyay buu yidhi xaqun calaa kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Cabdullaahi ibn Xudaafata wa ana abda'u bidaalika buu yidhi. qof kasta oo muslima waxaa xaq ku abuuri Umar in maaragtana Cabdullaahi ibn Xudaafa uu madaxa ka dhunkado anigana ka bilaabayo buu yidhi. anigana ka bilaabayo. qisaska quraanka aynugu filanba ibraahim calayhi salaam dab intoo loo shiday baa lagu tuuray manjaniiq baa lagu tuuray manjaniiq min makaanin baciid. marka ibraahim markuu sii dhacayayna malaa'igtoo dhan baa u timiday. markaas ugu dambayntii jibriil baa yimid calayhi salaam. alaka xaaji ya ibraahim buu ka yidhi ama ilayka falaa wa ama ila allahi fabalaa. yaa jibriil ma adiga may maanta adiga waxba kaagama baahni laakiin rabbiga waan u baahanahay buu yidhi kama maarma ilaahay. ibn cabbaas wuxuu yidhi hadalkii u dambeeyey ibraahim calayhi salaam markii dabka lagu tuuray u lahaa xasbi allah wa nicma alwakiil kaafiyahaygu ayo waa ayo oo allah weeyaan. ilaahay waa qaadir calaa kulli shay. ilaahay awood wuxuu u lahaa dabka inuu biyo ku baktiyo, awood wuxuu ilaahay u lahaa inuu dabka dabeed ku kala kaxeeyo, laakiin ilaahay sunnada ma isticmaaline qudradduu ilaahay isticmaalayo wuxuu yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan وسلاما على إبراهيم. dabko holcaya oo sifadiisii aanan laga zulin ayaa ilaahay amar wuxuu ku riduu yidhi ibraahim dushiisa waxaad u ahaataa qabo u haw bas iyo nabadgelyo iyo qabo siduu doona yala waa ilaahay. dabkii uu holcaya sifadiisii uu leeyahay laakiin ibraahim calayhi salaam xaddi jirkiisa ku taalla ma gubi karaayo. bal nolosha adduunyada ugu fiican ibraahim waxay soo martay baa la yidhi 40 maalmood uu dabka ku dhex jiray.
وإبراهيم عليه السلام قصص قرآن كوي كبوحان قصص كلها إيمانية لكن إياكو عبرة قادنا يا مانتا سلانتيسي هاجرة إيا إنجيسي إسماعيل أفغان توكو قاتب وليمي دي أفر برود حدود من مسجد نقصو كسوق هذا القدس إلى وحو كان أرض الحجاز بالكلل وبيئي يبادى اللهين ورابك كوير يهي ودماء يكون نولين وحتى قيل هذا استعانى اللهين هل كانت إبراهيم دي هاجري إسماعيل أيا اللقو يري كان نقو اسكذا نقو اللقو يري وأمر هاجر دادا ودادا المها هذا قبصة وقبصته بيه انتنا كوها يا هو لا دادا ولا دادا بعد انتنا كو سدايا قبصة وقبصتي مرقا بوري سلامة ومكة هل مكة كنت هلا ويان دتك حجيي با يقاني وريستا كويلك iyo rafaadka iyadoo zamankeena maanta nafaqyo iyo wadooyin iyo wax walba lagu diyaariyo biyo qabow hadana maalinta xujaydu ay yimaadaan waxay yimaadaan iyo ku daalan bay yimaadeen oo madoobaday meeshaas oo asbaaban lahayn ka warama barigaas halkaas Ibraahim Haajara kaga dhaqaaq markaas Haajara ka dabaadashay ku tir Ibraahim ma amar ilaahay ba markaas uu ha ilaahay nima dayacay iska socod ku tir ilaahay ha nima dayacay haweeneyda iimaankeega ka warama kalsoonida rabbigeeda ay ku qabtay eega xaaladda maanta muslimiinta caalamka ku nool ku qiyaas asbaabta lagu noolaado agteeda ma taalo baadiye biyo ma haysato wehel ma haysato meesha waa waadi catash reeyamaneed markay badaacadooda ay shaam u doonanayaan habeen inay maraan mooyaane maalin ma mari karaan bale hadday maalin ay ciidada ugu soo baxdo oon bay u dhimanayaan halkaas ayaa nabi ibraahim lagu yiri haajara iyo ismaaciil halka kaga dhaqaaq dadna adiguna qudus ku noqo yaa ilaalinaya marka yaa ilaalinaya yaa arsaaqaya yaa daryeeda ka dhabaaya ilaahay baa ka dhabaaya laakiin waa usrad qalbigooga macrifada ilaahay baa degtay halka inaka maanta zamankeena muslimiinta tawxiidku xarabka uu noo dul yaallo usradaas iimaanka iyo tawxiidku qalbigooga u dega qalbigooga idan laa yudayicana ibraahim mar baad yaa mar ilaahay aad nagu dhigto nagaga noqotay nama dayacaya socod ay ku tiri isaga nagu filan buurta gadaasheeda markuu ibraahim istaagay uu gartay xataa hadduu soo daymoodan inuusan arkaynin ducaduu ku duceeyey waa ka qur-aanka ilaahay noogu sheegay rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda baytika almuxarami rabbanaa liyuqiimu الsalaa fajcal afidata min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamaraati lacalahum yashkuruun ducadiisa waxau ka bilaabay diin buu ka bilaabay adduunye kama bilaabin innaka markaan ducaysanayna ducadeena waxaan ka bilaabnaa adduunyada lahu lacagisi ilaahu sanadkan ciyaalka imtixaankay marayaan ha baasaan adduunyada in ilaahay la weydiista way fiican tahay laakiin hidaayada horeysa diinta la horeysiiyaa ibraahim calayhi salaam uu jeedaa meesha uu reerkiisa dhigay inay biyo la'aan tahay inay baad la'aan tahay inay wehel ayna ku haysan uu arkayaa laakiin ducada waxau ka bilaabay diin buu ka bilaabay rabbanaa liyuqiimu salaa wuxuu garanayaa hadday reerkaasi salaada ay leeyihiin hadday diin leeyihiin hadday ilaahay xiriirkiisa leeyihiin adduunyadana way helayaan nolosha qofka muslimku diin bay ka bilaabataa adduunya kama bilaabanto deedna markaasa noloshii waxay noqotay cidhiidhi lidalika nabiyadu calayhim asalaatu watasliimaat meeshay ducada ka abbaarayaan u fiirsada rabbanaa layuqiimu الsalaa fajcal afidata min annaas warzuqhum min athamaraat midho la cuna ku arsaaq midhaha u dambaysiye waa arsaaqadii islaamnimo diintii u horreysiiyey cibaadadiibuu ku xojisiiyey in ummadda ilaahay aqalkiisaas waa beytka ilaahay ee muxaramka ay qulubta muslimiinta ilaahay u soo jeediyena uu ku labeeyey ducadii midho la arsaaq midho la cuna ilahu ku arsaaq buu yidhi xataa beera ma odhan midho la cuna ilahu ku arsaaq asbaabta
asbaabtii nolosha markaa ilaahay ka siiyey haajara maau zamzam baa loo soo saaray safar reer yamaneedaa soo waacday reerahoogii bay soo rareen way la degeen makata almukarama waxay noqotay magaalo ganacsiga shaam iyo yaman u dhaxaysa oo reer shaam markay imanayaan badeecadda shaam laga keena maka la dhigaa badeecadda reer yamaneed markay badeecadda doonayaanna maka yimaadaana makay ka qaataan halkaa markay magaaladii maka ay marayso tuulo biyihii ay dhex yaallaan oo biyaha dhex yaalla tuulada baayac mushrikii baa ka socda ayaa lagu yidhi jibriil baa u tegay ibraahim oo waxaa lagu yidhi rabbigaa wuxuu ku amrayaa islaantii haajare iyo ilmahaygii ismaaciil ee maka dhigtay inaad ka war doontood soo aragtaa lagu amraya orada u teg soo arag buurtii uu gadaasheeda ibraahim markii uu ka ducaynayay markuu buurtii iskor taagay muxuu arkaa tuulo waa meeshuu kaga tegay islaaniya ilmo yar waxay noqotay hayjad biyo leh baad leh magaalo ah oo dhisan baayac mushtarkiina ka dhex socda jibriil baa ku yidhi yaa ibraahim rabbigaa wuxuu ku amrayaa inaad haajariya ismaaciil isha aad ka soo aragta bas faraskaagana aanad ka daadegin kadibna waxaad ku noqonaysaa qudus yaa jibriil xaaskaygii weeyaan waa ilmahaygii ismaaciil inaan arkaan rabaa on la fadhiisto on warayste may inaad faraskaaga ka degto amar uma haysatid waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaat faatamahun ilahay baa qur-aanka inoogu sheegay dadka ilaahay jecel yahay adduunka dusheeda waa la ikhtibaaraa waa la imtixaamaa sidee lagu garan hadduu qofka haddaan la imtixaamin sidee iimaankaaga lagu garan marka qofka muslimka ee muuminka ilaahay xaggiisa imtixaan loogaga keenana waa marka la doonayo qofku qalbigiisa ilahay inuu ku xidhmo ha argagixin ha quusan waa marka la doonayo in iimaankaagu adkaado in yaqiintaadu aad tidhaahdid ilaahay baan haystaa waxba iga xuman maayaan yaan haysanaa allah baan haysanaa xaalad adag markay qofka muuminka ku timaado waxaa la doonaya inuu qofku yidhaahdo ilaahay baa macayga ibraahim calayhi salaam intaasoo imtixaano fara badan ayuu maray waxaa ka mid ah imtixaankiisii u dambeeyey waxaa ka mid ah imtixaanadiisii ilmaha ismaaciil uu 9 jirka uu ku dhalay ayaa markii dambe lagu yidhi qaado sida neefka xoolaha loo bireeya usoo biree magaaladii buu soo galay ibraahim ismaaciil waa kan namari aabo xaggee saaxiibkii baa kula kulansiinaya namari buu ka yidhi uu qaaday halka mine ee xujaydu dhagaxa ay ku tuuraan ee dhagax tuurka halkaa markay marayaan ayuu arkay ismaaciil oo didsan markaasuu ku yidhi aabba maxaad arkaysaa aabba waxaan u jeedaa oon arkayaa nin baa igu leh waa lagu odaygu ku gowracaya ay ka baxso markaasuu yidhi aabba waa ibliis weyna dhagaxa ku tuur buu ka yidhi waa halka xujaydu ay dhagaxa ku tuuraan ramya aljimaar halkaa markay marayaan buu la hadlo wuxuu ku yidhi falama balaga macahu sacya qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaam anii adbaxuka fandur maada taraa qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin halkaa markay marayaan buu ku yidhi aabbo waxaan ku manaam anigoo ku biraynaye adiga bal maxay kula tood odhan lahayd buu ka yidhi markaasuu yidhi aabba amarka ilaahay buuxi buu ka yidhi iyo fuli anigana waxaad arki doontaa inaan ahay adkayste sabir badan inaan ahay baad arki doontaa oo saabiriinta ka mid ah kaligii meel joogaa maqlay fadka dhexdeedoo laga leeyahay beerta hebel u geeya daruurta beerta hebel roobka u geeyo daruurta u geey u weciya daruurtii buu eegay meel bay ku da'day barkad biyay ku dhacday beertii buu yimid nin wuxuu arkay dhex taagan oo biyihiisii beerta mangadka ugu wewcinaya markaasuu yidhi magacii buu u sheegay magacii uu ka maqlayay fadka daruurta dhexdeeda iyo magaciisii baa isku tegay buu rasuulku yidhi markaasuu ka yidhi maxaad iga weydiisay magacayga wuxuu yidhi wallaahi wax kale kuma weydiine waxaan maqlay magacaaga oo fadka dhexdeeda laga sheegaye beertaadan maxaad ku samaysaa ii sheeg daruurtii waa ka ilaahay adiga kuu keene
wuxuu haddaad i weydiisay beertaydu markay ii soo go'do ayaa saddex u qaybiya midhaheega qayb beerta ayaa ku celiyaa qaybna aniga ubadkayga ayaa cunno isticmaalna qaybna waa sadaqadaystaa buu yidhi